Bismillahirrahmanirrahiim. Golato wanaagsan daawadayaal idilkiina meel walba joogtaan iyo si walba aad inoo maqleysaan waxaad kusoo dhawaataa muuqaal kale. waxaa muuqaalkan aan kaga hadlay doonaa koobka Jarnaal Daa'uud maadaama uu soo dhammaado waxaa la bixiyay abaalmarino kala duwan oo la siiyey xidigaha ee koobkan bandhiga cajiibka ah ka sameeyay macallimiinta. haddaba inta aan muuqaalkiina aan u gudagelin, haddii aad ku cusub tahay channelkan, rukumo oo subscribe inoo saar, like iyo share, aragtidaadana hoos inoogu reeb. Nadiga Horseed ayaa ku guuleysatay koobka Jarnaal Daa'uud iyadoona ay ka qaaday kooxda MCT kadib markii ku lagday 3 gool iyo 2 gool. Horseed oo markii lixaad ku guuleystay dhacdada xiisaha badan ee koobka Jarnaal Daa'uud iyadoo ay ugu dambeysay in koobkan hanato sanadii 2015. haddaba markay soo dhamaatay ciyaartii toddobaadkii hore ama toddobaadkan soo dhaafin dhexmartay kooxaha Horseed iyo MCT ayaa la bixiyay in garoonka dhexdiisa abaalmarino kala duwan kuwaasoo la siiyey shakhsiyaadka waxqabadka muuqda kasoo bandhigay intii uu socdo tartanka Jarnaal Daa'uud. abaalmarinada la bixiyey waxaa la siiyey xidigaha kale ah Xasan Cabdinuur Geesi Xasaazi, Siciid Yamani iyo macalimo Cabdijoon oo isna ku guuleystay macalinka ugu fiican tartanka. Siciid Yamani ayaa ku guuleystay goolhayihii ugu fiicnaa tartanka koobka Jarnaal Daa'uud kadib markii uu ka saaciiday kooxdiisa Muqdisho City Club in sanadkii labaad ay gaarto finaalka koobka Jarnaal Daa'uud. Siciid Yamani ayaa ka mid ah goolayaasha ugu fiican dalkeena jooga isagoo bandhig cajiib ah ka sameeyay isreebkii koobka adduunyada xulka qarankeena Soomaaliya ula dheelay xulka Zimbabwe ugu dambeyn ay tartanka iskaga soo hareen. Siciid Yamani oo kooxda MCT wuxuu ugu soo biiray naadiga difaacanaysa horyaalka Somali Premier League ee dekedaha. dhanka kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Geesi Xasaazi ayaa ku guuleystay xidiga ugu wanaagsan ee khadka dhexe ka dagaalama isagoona ciyaaryahankan bandhig cajiib ah sameeyay. xidig u fiican tartanka koobka Jarnaal Daa'uud waxaa ku guuleystay qanaaska khadka dhexe ee ka dagaalama Xasan Cabdinuur Geesi Xasaazi kaasoo bandhig inqabad leh kusoo bandhigay kulamada u ciyaaray kooxdiisa kubadda cagta Horseed. Xasaazi ayaa intii uu socdo tartanka koobka Jarnaal Daa'uud wuxuu dhaliyay 6 gool isagoo u saftay 5 kulan oo ka mid ah kulamadii ay dheeshay kooxda Horseed, taas oo ku muujinaysa inuu yahay xidiga ugu wanaagsan tartanka. sidoo kale waa xidiga kaliya dhexda ka dheela ee dhaliyay 5 gool wuxuuna ka goolal badan yahay qaar ka mid ah waryahanada kooxaha kale. Tababar Cabdijoon ayaana sidoo kale loo caleemo saaray ama la guddoonsiiyey abaalmarinta macalinka ugu fiican koobka Jarnaal Daa'uud. Cabdiweli Maxamuud Cabdijoon ayaa 3 sano oo xiriir ah gaaray finaalka koobka Jarnaal Daa'uud isagoo mar hogaamiye ah kooxda Elman ayuu la qaaday halka Horseed iminka uu hogaaminayo gacanta u geliyay halka hal sano kalena ama hal koob kale laga qaado oo hogaaminayay kooxda kubadda cagta ee Horseed. Cabdijoon ayaana sidoo kale dhulka la dhigan dhammaan kulamada uu ciyaaray koobka Jarnaal Daa'uud isagoo kaliya 2 kulan oo barbara galay inta kalena oo adkaada, taasoo ku tusinaysa awooddu sanadkan u lahaa inuu ku guuleysto dhacdada koobka Jarnaal Daa'uud. Cabdijoon waa mid ka mid ah macallimiinta ugu fiican ee ka ciyaara ama leeliya kooxaha dalkeena isagoona ugu dambeyn ku guuleystay macalinka ugu fiicnaa tartanka koobka Jarnaal Daa'uud. wuxuu ka qaaday macallimiin badan oo ka mid ahaa macallin Yuu Cali oo 3 sano la soo dhaafay ku guuleysanayay horyaalka Somali Premier League. Cabdijoonna ugu dambeyn wuxuu gacanta ku dhigay koobkiisa ugu horeeyay kooxda Horseed inuu la qaado tan iyo markuu majaraha u qabtay naadiga ciidanka militariga Soomaaliyeed ee caawa iyo maalin ee kubadda ee